السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامينا سوماليين ميلول باجوكتان وضافها الدنيا كجوكتان. هل كان قد داون إنسان وشنال كسومالي انتربرنير. أنا مقعد وعبدولي وحناكم مقعد عبدول نيس وتذكر إجوا قنويهين. ما أنت وحن ربا إن كهالله برنامج كاسو تيك توك كل وانا قلنا سومالي بدن باكو حران Soomaalida ku xiranna waxaad u malaysaa in aad loogu fogaaday rag iyo dumarba applicationada la isticmaalo buu ka mid yahay hasugu danteede Soomaalidu aad ugu badan tahay marka maanta waxaan rabaa inaan iftiimiyo TikTok's faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa wax walba oo la isticmaalo kaliya ma applicationada hadda la isticmaalo oo sida social media u badan yihiin oo sida Instagram ko kale WhatsApp ko kale Facebook Snapchat ka Twitter ka iyo qaar kale badan oo dadku aad u isticmaalaan marka applicationada la isticmaalayo kulligood faa'iido iyo khasaaro u leeyihiin marka xoogaa waxa la yar qurux badnaatay inaan ka hadlo barnaamijyada social media ama Soomaalidu aad u isticmaalaan mid kamid ah oo la yiraahdo TikTok horta TikTok yaa iskale horta yaa iskale marka oo horeysa TikTok waxa iskale China wuxuu si toos u hoostagaa dawladda China sida applicationada Mareykanka kale ma aha wax private ay leeyihiin dawladuna marka ay kor ay kala socoto laakiin TikTok waa barnaamij waxa weeye si toos ah ay dawladda China u maamusho haddii aan idin sheego dadkii og yihiin dadkii aan ogeynna iyagu ma oga marka faa'iidada khasaaraha faa'iidada horumarna mise waxaan horumarnaa khasaarada kullu Soomaalidu waxay jecel yihiin mar walba in la horumariyo faa'iidada oo khasaarada dib loogu dhigo si ay markaas ay u ogaadaan wax wanaagsan horta TikTok wuxuu kamid yahay applicationada la isticmaalo applicationadaas oo maxay ahayd dadku ay aad u xiiseeyaan oo maanta caalamka almost dadka ku nool waxaan dhihi karnaa waxa soo degsaday dadka adduunka ku nool meel kamid ah ama wax u dhow meel kamid ah way soo degsadeen dhalinyaradaasna aad buu isticmaalaan marka faa'iidadiisu waxa weeye inuu qofku markaas waliba gaar ahaan dhalinyarada marka ama dadka expertiga oo dadka caanka ah in video isaga dubdubaan oo heeso playback ay dul saaraan heesahaasoo markaa ay dib ugu ciyaaraan si markaas ay u helaan views badan ama shacbiyad badan sidoo kale qofkii waa lagu baranayaa oo qof waxa laga yaabaa maanta aanan caanba ahaynba oo bulshadii aan ka dhex muuqan in maxay uu TikTok isticmaalo isla markaasna qofkii halka laga barto oo maxay ahayd caanimadiisii uu caanka ku noqdo qofkaas waxa kaloo jira way jiraan dad kulli laba dhinacba maxay ahayd faa'iidana u soo gudbiya dadka khasaarana u soo gudbiya ama waxyaabo aan shaxuma u soo gudbiya laakiin haddii intaan ka bixin qaybta macnaha faa'iidada ah baan ku sii jirnay marka hadda Soomaali badan baa aad u isticmaasha oo kulli kuwa la yaqaano iyo kuwa aan la aqoonba oo hadda dib laga bartay marka faa'iidadiisu waa intaas in kala badan okay khasaaradiisu maxay tahay marka haddaan khasaaradiisu idin sheego kulli waxa laga yaabaa waxaan hadda halkan idinkaga sheegi doono caaw channelkayga in maxay ahayd dad badan ay fahansan yihiin dadna is fahansaneen maybe in laga yaabo dadka u badan in is fahansaneen laakiin dad yar oo marka ama social media ama newska akhbaaradka caalamka kala akhriya inay maxay ahayd dadkaas ay aad uga warhayaan horta marka u horeysa application walba marka soo degsanaysid wuxuu ku weydiinayaa in maxay ahayd informationkaaga ama datadaada ama mobilka wax kugu jiro oo ogolaatid in applicationkaas markuu soo galayo aad ogolaatid oo marka wax walba halka lagu ogaado TikTok hadda kulli hadii aan dhan kale u sheegno hadda labada dawladood oo hadda tirsan labada quwad oo hadda China iyo Mareykan waa hayaan kulli waxay isku hayaan arrimo dhaqaale isku hayaan arrimo siyaasadeed isku hayaan iyo waxay isku hayaan mabaadi fara badan oo marka iyagu labada dal ay dalmoodeen hadda saan ogsoonahay China iyo Mareykan xaaladdu meesha maraysa kulli waa la ogsoon yahay waana laga dhigsan yahay dadka newska daawadana kulli aad bay ugu dhigsan yihiin waxa ognahay in Mareykanku hadda irtadaan
uu maxay ahayd baan saaray shirkadaha laga leeyahay China kuwaasoo si toos ah uga howlgala ama uga shaqeeya cariga dalka Mareykanka. marka TikTok-ana waxaad u maleysaa isaga ilaa hadda weli Mareykanku maysan saarin baan, laakiin waxaa u maleysaa hadda waqtiyada soo socda inay Mareykanku saaraan baan. Okay, khasaaradii baan ku jirnaa aan dib ugu soo laabano kolley yaraan la aaday barnaamijka xogaa wax waa ka baxay. waxaan rabaa inaan marka aan idin sheego khasaaradiisa gudaha ugu jirnaa. Okay, TikTok qofku markuu soo degsado uu qofku isticmaalo oo qofkii marka ama video uu isaga duubo ama maxay ahayd marka hees playback uu ku ciyaarayo qofka war ma hayo. inta TikTok uu ku jiro ama barnaamijka TikTok uu ku jiro mobilkaaga waxa laga yaabaa in uu sirtaada oo dhan ama personal information-ka ama waxyaabaha personal security-ga qofka khaasaan u leeyahay in la socdo. yaa la socda waxa la socda dadkii ama dalkii iska lahaa TikTok-gaas baa waxay ula socdaan si xawliya dhaqdhaqaaqa. hadday tahay marka guriga joogtid, marka goobaha ganacsiga joogtid, marka goobaha shaqada la joogo iyo marka iska duubaysidba. xitaa waxa laga yaabaa oo hadeertadan informationada ama newska ama waxyaabaha hadeertadan laga sheegay barnaamijka TikTok-ga oo wadamo badan ay maxay ahayd ay ku dhaliileen China ay kamid ah in qofkii xitaa isagii oo aan isticmaalin TikTok-gii qofkii isagii aan TikTok aan isticmaalin oo laga yaabo inuu application kale isticmaalayo sida maxay ahayd ama WhatsApp-kii ama Facebook ama YouTube-kii oo kale qofku isticmaalayo in qofkii uu duubo. Okay, markuu ku duubayo oo adigoo barnaamij kale isticmaalay hadduu ku duubo dib maxaad u maleysaa haddii aad marka telefonkaaga iska haystid ama game ciyaaraysid ama maxay ahayd aad ka daawanaysid social media mid kale isticmaalaysid wuu ku duubaya. waxa laga yaabaa haddii aad kolley waxyaabo adigu aad doonin inaad soo dhigtid banaanka oo kale ama dadku ay arkaan oo kale oo qofka personal issues ama personal security qofka u ah oo qofka u qarsoon in ay duubaan oo hadhowna kolley ay adiga dhibaato kugu noqoto. horta kolley arintaas kolley waxay saameyn kartaa dadka caanka ah oo kale iyo dadka wadamada horumaray jooga. hadda dadka Soomaaliya jooga oo kale iyada waxa laga yaabaa ama dhalinyarada sida xoog u isticmaasho Soomaaliya joogta in dhibaato badan isku leeyahay, laakiin Soomaalida hadda joogto wadamada reer galbeedka ah iyo wadamada kale waxa laga yaabaa in dhibaatada ay saameyn karto oo qofkii markii dhaqdhaqaaqaysi iyo maxay ahayd xitaa even waxa mararka qaar la sheegay in qofka bangi account-kiisa oo kale address-kiisa oo kale maxay ahayd meelaha uu qofka tago kale in si toos ah loola socdo oo si toos ah u daalcanayso. hadda Mareykanka siyaasiyiinta ama qof walba oo siyaasi oo Mareykan kamid ah barnaamijka loo ogolay inuu isticmaalo. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay waa ognahay in China iyo Mareykan is hayaan hasigu danteeda hays hayaan dhib ma lahan, laakiin dawladda China dawladda waxaan ka wadaa Mareykanka waxay fahansan tahay una dhuun dolasha in barnaamijka uu ku qarsoon yahay basaastaan ama wax la basaasay. marka already waa dawlad weyn oo dad badan oo aqoon-yahano ay u shaqeeyaan oo waa dawladda quwadda Mareykanka waa dawladda ugu weyn caalamka oo xagga quwadda marka la dhaho iyo teknolojiyadda iyo horumarka marka la dhaho kulley cid ku gaarta ma lahan. marka wax walba iyagu ogaan kartaa, laakiin hadda wadamada soo kacay oo kale ama dadkooda ama dawladoodu waxa laga yaabaa way ku adagtahay inay ogaadaan. hadda tusaale ahaan oo kale dalka Hindiya iyo China way is hayeen waxay isku hayeen arrimo policy ama arrimo siyaasadeed. Hindiya totally ban bay saartay waxa la yiraahdo TikTok. Okay, Hindiya waa dalka labaad oo ugu dadka badan caalamka markii laga yimaado China. Okay, Hindiya iyadoo dadka inta tira leeg haysata almost waxa lagu sheegaa 1.3 1.4 wax ku dhow billion oo dad inay yihiin. Okay, dadkaas inta u badan TikTok way isticmaalaan haddii caan yihiin iyo haddii caan bahaynba. halkaas kulle waxa ka soo khasaaro weyn ba ka soo gaartay barnaamijkii sida khaaska ah ee dawladda China u lahayd oo laga isticmaali jiray waddanka la yiraahdo China waddanka la yiraahdo Hindiya. marka aniga taladeeda u dambeysay barnaamijka inaan dheereeyo ma rabo. waxaan jeclahay inaan barnaamijka soo koobo si ummadda Soomaaliyeed ama dadka isticmaala TikTok ay uga feejignaadaan. kulley ikhtiyaarka iska leh adiga oo isticmaali kartaa adoo xitaa information hay isticmaali kartaa adiga iska leh ikhtiyaar koowaad, laakiin markii wax lagu sheego oo wax badan oo marka aad ogeyn lagu sheego waxa laga yaabaa inaad ka joogsato. marka anigu tala ahaantida ama on my opinion waxaan siin lahaa in Soomaalida ay iska yareeyaan barnaamijka maxay ah TikTok la yiraahdo, waliba gaar ahaan Soomaalida joogta qurbaha oo wadamada western countries ama wadamada galbeedka
ama Europe ha ahaato ama North America ha ahaato arrintaas oo adiga maanta laga yaabo inay boqolkiiba 70 ama boqolkiiba maxay ahayd 80 ku ah safe oo ku badbaadi kartid hadday tahay hantidaada iyo hadday tahay naftaada marka ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba dadka jooga waxaan ku bogaadinayaa in ay barnaamijkaas ama application-ka TikTok la yiraahdo ay iska daayaan kulli taladeeda ugu dambaysa taas ay noqonaysaa okay arrin kale imaanaysa arrinta kale waxay oranaysaa iska taqaana Soomaalida waxay ku leeyihiin anaga barnaamijkan si xoog la u isticmaalnaa waan qabatinay waan la qabsanay mana deyn karno tusaalahaan kale waxyaabo fara badan baa noogu jira ama waxa laga yaabaa dad badan oo maanta nala socday social media nagala socday in haddii aaladaas aan iska deyno in halkaas aan khadka uga baxayno okay inaad khadka ka baxdid oo dadkii ay ku waayaan oo laakiin dadka waa la soo xiriiri kartaa telefoonada la hayaa waxa la hayaa social media kala la hayaa hadday tahay Instagram-ka hadday tahay Facebook-ga halkaas aad iska soo xiriiri karaa laakiin ma aha inaad u dabarnaatid ama u xirnaatid ama u xayirnaatid barnaamij adiga ku basaasay ilaa waxa markaa isticmaalaysid application walba ama wax walba markii aad inaad horumar ka gaartid waxa la fiiriyaa khasaarada iyo faa'iidada okay khasaarada iyo faa'iidadii mar way isla ekaadaan marna way kala bataan markii ay khasaaradu badato oo faa'iidada yaraato dee waa iska dareemayna qofkaas waxa uu iska deynaya laakiin markii ay khasaarada iyo faa'iidada isla ekaadaan marka waxa laga yaabaa talada u dambaysa ama go'aanka u dambeeya inuu yeesho qofka markaas talada ka go'ayso rag iyo dumar nooc doon ha ahaado oo marka barnaamijka isticmaalaya marka anigu cidna dhihi maayo si toos ah barnaamijkan iska dhaafo qof walba ikhtiyaarkiisa u talaa laakiin waxa idin sheegaya in maxay ahayd barnaamijkaas uu barnaamij basaas yahay uusan u fiicnin Soomaalida dalay dibadba hadeertadan wadamadii awoodda lahaa waa ka qaylinaya oo leh TikTok ayaan isticmaalin oo qaarkood Hindiyada kamid ah baan isaarayaan oo xitaa waxa la ogsoon yahay hadeertadan doorashadii ka dhacday 2016 ama 2016 dalka Mareykanka uu farageliyay Ruushka waxa loo maleynayaa oo hadeertadan waliba xitaa markii la baaray oo kale la sheegaya in application-nadii ay ku basaaseen dalka Mareykanka Ruushka ay gacan ka geysatay oo kale dalka China oo uu kamid yahay barnaamijka TikTok oo kale marka qoodiga adduunka u weynaa wala basaasaya annaga oo Soomaali ah oo taag iyo tabarba aan ahayn xagee baan joognaa waxa fiican in maskaxdu shaqeyso garaadkana uu shaqeeyo marka waan ogahay in barnaamijka ana laga maarmin laakiin waxaan dhihi lahaa wax walba faa'iido khasaarad marka yeesho oo khasaaradu badato dantaada dib kula ala garanaya halkaas aan anigu barnaamijka ku soo gabagabeynaya waxaana jeclahay hadalkayga inta wanaagsan iyo inta xulnada kulay iga raal ahaad inta wanaagsanna kulay waxaan jeclaa in Soomaali weyn meel walba joogto in maxay ay qaadato barnaamijkaasna hadda waxaan rabaa in Soomaali weyn la gaarsiiyo asxaabteeda iyo dadka igu jirtaba inay share gareeyaan si markaas ay u gaarto barnaamijkaas hadda aan ka hadlayo oo qoseeyo TikTok in maxay ahayd laga fiijinaado arrinta kale oo ku soo gabagabeynaya waxa weeye channelkan uu cusub yahay waxaan rajeynayaa asxaabta inaad barnaamijka ama waxyaabaha dambe aan soo dhigi doono ama fiidiyada dambe aan soo dhigi doono in ay noqdaan kuwa ku xiiso geliya inkastoo aan barnaamijyo fara badan aan soo wado channelkan kulay ku bixi doono af Soomaali marka haddaan hadalka soo gaabiyo barnaamijka waxaa idin sheegaya dhamaantiin inaad share gareysaan sidoo kale subscribe-ka ina iyadana kulay waa bilaash ina iyadana subscribe saartaan sidoo kale like-ta iyo comment-ga iyadana maxay ahayd noogu reeba hoos noogu reeba marka saas aan idin rajeynayaa asxaabta khayr baan idin rajeynayaa barnaamijkaasna waxaan filayaa inuu fici doono caawa barnaamijka aan ka hadlay waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh